milatariga dalka Ruushka ayaa sheegay inay si guul ah u sameeyeen tijaabadii ugu horeysay ee gantaal cusub oo qaaradaha isaga kala gudba. Hubkaas oo madaxweyne Vladimir Putin ku sheegay inuu ka dhigi doono wadamada reer galbeedku inay si qoto dheer u fikiraan kahor inta aanay qaadin damacyo gardarra oo ka dhana Ruushka. Tijaabada gantaalka Sarmat ayaa ku soo beegmayay iyadoo ay cirka isku sii shareerayso xiisada u dhaxaysa Moscow iyo wadamada reer galbeedka ee ku aadan duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine, waxayna hoosta ka xariiqday in Kremlin-ku uu xoogga saarayo dhinaca horumarinta hubkiisa nukliyeerka. xogayaha warfaafinta wasaaradda difaaca dalka Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Ruushku Mareykanka siiyay ogeysiis hordhac oo ku saabsan tijaabada gantaalkan iyadoo la raacayo heshiiska cusub ee Smart ee xakamaynta hubka nukliyeerka u dhaxeeya Moscow iyo Washington. Ruushku wuxuu si sax ah ugu wargeliyay Mareykanka iyadoo la raacayo waajibaadkiisa ku dhigan heshiiska New Smart inuu qorsheynayo inuu tijaabiyo gantaalkan, ayaa uu yiri isagoo hadalkiisa sii raaciyay tijaabada noocan oo kale ahi waa mid joogto ah, la yaabna ma ay ahayn inuu sameeyo. Sarmat waa gantaal culus oo hawshiisu ay soo socotay dhowrkii sano ee u dambeeyay, wuxuuna ka mid yahay gantaalada xambaara hubka nukliyeerka ee sida fudud iskaga kala gudbi kara qaaradaha, wuxuuna bedelayaa gantaalka lagu magacaabo Fyodor kaasi oo ay reer galbeed ku bixiyeen magaca shaydaanka, isla markaana u udub dhexaad u ah gantaalada xambaara hubka nukliyeerka dalka Ruushka. Rashid Baradhiyal TV.